barnaamijka toddobaadkani waxaa marti noogu ah Ibrahim Jaamac Axmed oo kamid ah bahda sportiga isla markaana ka soo mid ahaa bahda sportiga dowladda Soomaaliya kuwada ugu magac dheer. anigu waxa sabab ah waan aaminsanaa inaan aqoon aan wax kaga bedelo iyo sooyaalkaygi waxaan ku dhameystay sport aniga oo taariikhan marka waxaan sidii deegaanka anoo wax badan u fikiraya inaan wax ka bedelo maaha magacaabis ma noqdo meel mishaar lama waxa weeyaan meeshu waa meel sanadkii waxyaabo yar oo faraal ka soo baxa ayaa jira oo tababarra iyo gobolada iyo loogu qabtay iyo degmooyinka ayaa jira meeshu meel maaha magacaabis dadku way kala garanayeen meeshu meel magacaabis kursi maaha meeshu waa meel xirfadana waxa loo baahan nin kasta xirfad yaqaan inuu ku shaqeeyo kale meesha waxa taala markaan aragnay doorashadii aan soo galay waxa dhacday markii ugu horeysay waxay ku bilaamatay doorashadu ergada soo galaysa inay noqotay heed macallimiinta kubadda cagta projectida 36 macallin baan leenahay daada soo koraysa tababarta 36 macallin ayaa sportiga dhan la isku dhex jira laakiin macallimiinta kubadda cagta waa gaar waxa weyn si guud macallimiinta kubadda cagta inay soo galaan bee garsoorayaasha kubadda cagta deegaanka inay soo galaan bee mayna dhicin arintii waxa dhacday inay soo galaan ergooyin kale oo fookaalada looga yeero gobolada oo waliba ayna ka soo qayb galin ilaa 2 gobol ayna doolo iyo daawa ayna ka soo qayb galin marka ugu horeysa aan fadhiisanay gurigii waxaan arkay xeerosaadkii ugu horeeyay ee federation lagu dhisay markaan arkay qaabka loo akhriyay iyo sida loo soo qoray iyo ka dalka markaan arkay markii koobaadba xeerosaadka ayaa buriyay nidaamkii la soo qoray xafiiska soo qoray xafiiska dhalinyarada ciyaaro sababta uu ku buriyay waxa weeyaan markii loo akhriyay cid gacanta u taagaysa aan sixinaysa xeerosaadka inuu sax yahay inay macallimiinta garsoorayaashu noqdaan bee laakiin ergooyinka gobolada fookaalada waxa siiya mishaarka xafiiska dhalinyarada ciyaaraha shaqaalaha xafiiska dhalinyarada ciyaarahana mishaarka xafiiska siiya wax ma ansixin karaan waxna ma dooran karaan cidda wax dooran karta waxa weeyaan macallimiinta iyo garsoorayaasha iyo kooxaha macallimiinta waliba kuwa kilab hadayna lahayna macallimiinta projectiga daal soo koraysan loo yeeri ergay guriga la soo fariisin xeerosaadka ansixintiisa waxa ansixiyay fookaalada iyo shaqaalaha xafiis baan siiyay xagaas ay wax ka khaldameenba markii koobaad adi marka ma ka hadashay inta doorashada soo magacaabay soo gali ka hor arinta inay khaladka ma sheegtay khaladka waxa weyn waxaan ku sheegay hogaamin baan ku jirtay oo saddex wasiir baa meesha fadhiyo hogaaminta xafiiska dhalinyarada ciyaaraha Lembo iyo wasiir Lembo iyo waxay kalaayeen Umar oo hadda oo wasiir ku xigeen cusub oo lagu soo qoray xafiiska iyo Cabdirasaaq oo qaybtan fadhiya Siraas Fasaamiga kuwan gudiga fulinta ee kubadda cagta ee federaalka deegaankeena oo fadhiya waan u sheegay arintan qaab dhismeed inay waxaan u sheegay Cabdirasaaq waxaan ku yiri arintan khalad weyn qaabka wax loo wado wuxuu guuri iyadoo doorasho dhicin buu guuri Ibrahim oo adi gudoomiye ku xigeen ma ku dooranay ma ku qanacsan tahay waan ku doortay marka macnaha arrinta shakhsiyan iyo hadlayay mas wax in laga tashado oo lagama tashan arintan lagama tashan dib ha loogu noqdo fookaalada laftigooga xafiiska lagu shiriyay waxa la yiri annaga mishaarina siina xafiisku annaga mishaarad naga qaadataan qofka aan wadano hadaa dooran weydaan mishaarkiina ayaa dhibaato geliya Cabdirasaaqna markaan la hadlay waxaan ku yiri Cabdirasaaqo arintaas waa arin khalada ka bacdi bal waan eeganaa waxa ka soo baxay doorashada gurigii baan dib ugu noqonay guriga laga soo baxay gurigii doorashada markaan dib ugu noqonay federationka idaacadda lagu dooray waxaan rabaa inaan kuleelka dhinaca cadeeno Cabdirasaaq macnaha iskii shakhsiyan buu ku yiri xaqdin ku xeen baan kula jeclaan lahaa ما يوالو قدرتي بودي والو قدرتي أنا جا قامني بودي أنا جا جدا كو قامني بودي ها وجوري الباب كله حدي والله صوص صاري بقى الباب كله حدي والله صوص صاري كبعد يجا قامي كبعد واحد عضي إنه عبد الرزاق يرو ويلاده كده مكحيين ما كاردقني ما تكون قناع سنت هاي مركز نقول عبد الرزاق نظام كشرعي يعني لبال مرين كبدا عقتين دلكين عدة عدك جوري جاس guriga maadaama markii ugu horreysay xeerosaadka la jibiyay
ay macalimiinna kasoo qaybgelin haddana ergooyinkii kale loo yeedhay fookaaladii iyo shaqaalihii ahaa ayaa waxay isku bedeleen markii hore fookaaladii shalay loogu hanjabay in mishaarka laga jarayo ayaa waxay isku bedeleen in Ibrahim doorasho la doorto ay u codayaan kabacdi gurigii markii Ibrahim codkii loo leeyay hal la doorto haddana yaa loo arkay sanduuq la soo dhigay in Ibrahim loo badan yahay ayaa waxaan arkay in hogaamin intay ka dhax kacdo meeshii ay tiraado waan joojinaynaa nidaamkaas Ibrahim kubadda cagta markuu madaxafiisyadka haba koox kilaba dhisi waayay magaalada waayo inaan magaalada aanu kilab dhisana waxay ku xiran tahay in dad kula fahmo aad hesho dhaqaale in la helo markaan eegnay arintaas waxaan idin anu waxaan doorashada lagu dhex jiraa waxa isku bedeshay si iyadoo doorashadii lagu jiro oo wali fookaaladii fadhiyaan ayaa waxa isku bedeshay xaqii ay ahayd in qaabkii la saxo doorashadii iyo nidaamkeedii la saxo ayaa qiimeyn isku bedeshay sidii lixda report ee qiimeyntii marka shakhsiyaadkii gaarka ee wasiirka ka bacdi markaan ku yiri arintaasi adoo 30 sano fadhiya ayaad hal kilab dhis weeyday 20 sano xabiiska joogta ayaan ka badan hal kilab wala dhis weeyday anoo sanad la bilood jooga oo waliba markaan xafiiska ka tagayna qorshayaasheedii markii fuli waayeen nidaamyo ay fuli waayeen ayaa waxaan uga tagay shakhsi ahaanteed ayaan uga tagay inaan iskaga tago aan shaqada iskaga tago maadaama qorshayaasheedina way socowaayeen danka family-gana maadaama xagga family-gana ay waxyaabo yar ay jireen marka waxaan siriiday nidaamkan aad xaggan aad ku sii club aad ku sii joogto waayo mustaqbalka inaad waxaad hiigsanayso oo weedaanade iyo qorshayaashood ka mid dhalin weedaanayadana dhibaato ay noqon marka sidii baan uga tagay xafiiskii kabacdi xafiiskii maamulka magaalada waan keenay waraaqadii anaa u keenay xarunta dhexe waan geeyay cid shaqo iga iriday ma jirto waa laga aqbalaa cabashadeydii cid wax dhibaato geystay ma jirto waa yahay baa la yidhi sidii baan uga yimid kabacdi arintaas iyadoo waa tii lagu hadal qaaday bay shalay doorashada gudaheega iyadoona haynba in munaasib lagu hadal qaado meesha kabacdi waxaa dhacday doorashada dib markaan ugu noqono nidaamkii markaan aragnay iyadoo geed socodkii nidaamkii ay khaldan yihiin xerosaadkiina la baal maray waxaan idhi anigu hadda laga bilaabo doorashadii maadaama nidaamkeedii sharcigeedii la baal maray mar horena xerosaadkii cidii gacmaha muujisay ee tiri xerosaadku waa saxna ee fookaaladii xafiiska ahaayeen ee hayn macallimiinta garsoorayaashii doorashada qaab dhismeedkiga la baal maray sharciga football federation ee kubadda cagta dalkeena u yaalay ee xerosaadkii la baal maray anigu waan qaadacay doorashadii oo ka baxay kabacdi waxaa dhacday xubinkii kale ee isla tartameynay in meeshii ayna doorasho ka dhicin laakiin la yiraahdo waxa gacan taag ay ka dhacday cidda gacanta taagtay ee ugu codaysana waa shaqaaliye xafiiska waan haynaa shaqaaliye xafiiska focalkiina waa focal ma dooran karo nidaamka u dhigay focala dooranay leeyahay hala soo saaro sharcigaana hala natuso hala keeno meeshii leeyahay focal wax dooran kara iyo shaqaale dawladda dhalinyarada xafiiska dhalinyarada ciyaaraha wax dooran kara hala keeno laakiin si guud waxaan kugu sheegaynaa nidaamkii doorashada in la baal maray sharcigeeda tii shalay ka dhacday deegaanka laguna gafay bahda isboortiga ee deegaanka gobolada maamul magaalooyinka qabalayada dhammaan deegaanka dhan isboortigiisa waxaana ku gafay xafiiska dhalinyarada ee ciyaaraha arinta inuu waxaan xaggan ugu soo jeedinaynaa in arinta dib ay uga noqdaan doorashadii dalka deegaanada kale sida Ethiopia u dhacdo kale footballka kubadda cagta football federation ay doorashada u qabtaan in loo qabto waa kullu Ibrahim